ololaha la dagaalanka musuqmaasuqa ee uu wada ra'iisul wasaaraha cusub ee Ciraaq waxaa kamida haweeneyda caanka ah ee lagu qabtay iyadu lacag aad u far badan waa Aliya Nusayf oo wax badan kamid ah baarlamaanka dalka Ciraaq 15 milyan dhibic 5 doolarka Mareykanka ayaa gurigeeda loogu tagay iyo dahab aan aqliga aqbali karin xaniidin haya macluumaad warbixin cajiib ah sidoo kale ku-xigeenka wasiirka batroolka Ali Miraj gurigiisa waxaa laga helay 3.1 milyan oo dollar iyo 4 bilyan oo diinaarka Ciraaq yaa badan ayaa isdaba yaala faahfaahin macluumaad ayaad maqli doontaa arrimaha ku saabsan qodobada sidoo kale aanu barnaamijkeedu ku aaniyana waxaa kamid ah kooxda Morocco ayaa noqotay kooxdii ugu horeysay ee Afrika ka socota oo u soo baxda wareegga 16aad ee koobka adduunka waxayna gool kulaad kaga badisay kooxda Netherlands laakiin wax yaab la ayaa dhacay markay ciyaarta bilaabanaysay iyo markay ciyaarta dhamaatayba kooxda Morocco kaliya kubad ciyaar uma imaanineen sidoo kale dacwo ay gudanaysay diin bay faafinaysay hadalhayn weyn baa arinta ka dhalatay barnaamijkan idinku haya muuqaalo iyo warbixino cajiib oo arinta ku saabsan qodobada sidoo kale barnaamijkan ku eegi doonayna waxa kamid ah Iran iyo Mareykanka ayaa siyaabo kala duwan ama hadallo isburinay oo ka imanayo kadib markii Trump uu sheegay in maanta oo talaada lagu kulmayo Doha laakiin Iran ay diiday waxay tiri Mareykan maanta meel aan ku ballanayna aan isku horfariisano ma jirto ay leedahay Trump sheekada ayaa ku adag isla kulan buu doonayaa Iran kulan bay diiday qodobka ugu dambeeyana barnaamijku waxaan idinku hayaa sheeko cajiib ah gabar qoys Yuhuud ka soo jeeda oo Yuhuudiyad ahayd oo muslimtay ayaa waxay nala wadaagaysaa dhacdo cajiib wixii ku dhacay markay hooyadeed oo Yuhuudnimada ay ku weynta oo dadka Israa'iil ka imaada kamid oo Israa'iilnimada ay ku weynta ayay waxay u sheegtay labadii gabdhood oo kaliya ay haysata waa iyada iyo walaasheed ka yare inay muslimtay laakiin maxaa ku dhacay ka horna lacag ma haysan qoys taajirna kama soo jeedin 15.5 milyan oo dollar ayaa Aliya gurigeeda loogu tagay hadda 15 milyan ibar waxa kaaga daran dahab aan aqliga gali karin dahab badan baa guriga iska dhooban iyo hadiyado kale oo qaali ah ugu dambeyn Aliya hadda gacanta booliiska ay ku jirtaa maxkamadda ay sugaysaa waxa laga yaabaa in lagu xukumo leeyahay 50 sano oo xabsi ah waa 50 sano waa inta noloshaada ka dhiman xabsiga ku jiraysa waxa kaaga daran ku-xigeenka wasiirka batroolka dalka Ciraaq Ali Miraj gurigiisa waxa asna loogu tagay 12 milyan oo dollar iyo 4 bilyan oo maaragtay lacagta diinaarka Ciraaq waxay u dhigantaa 3.1 milyan oo dollar waa lacag aan ka yaraan lacagtii lagu qabtay xildhibaan Aliya hadda waa laba xildhibaan kaliya midna isku dardarkiisa waxa lagu hayaa lacagiiso lacaga u dhacdo marka isku daro ku dhawaad 15 milyan gabadha xildhibaanadaana 15 milyan ibar labadoodaba Ali Miraj gurigiisa asaga waxa loogu tagay saacada qaali ah oo 100,000 joogo hadiyada kale gawaare aan macquul ahayn waxaad moodaa ninka waliga ma dhimanaysa la dhaay iimaan darada war xitaa dadkii waxa u meereebin dadkan Ciraaq kaliya kama jirto Soomaaliya waan hubaa xildhibaanada qaar wasiirro hore wasiirada joogo madax hore madax hadda joogo waa la qabanaa hadii la dhaho $2 milyan oo dollar bangi iskaga jiro guriye qaali ah gawaare qaali ah hadiyada qaali ah guriyooda in loogu tagay iyo dahab aan macquul ahayn guriyooda qaar hadii la faago waxa ka soo baxa wadiyaabaysa ra'iisul wasaaraha cusub ee Ciraaq la doortay wuxuu la soo baxay dardar iyo olole aan caadi ahayn waxaad moodaa ninka Ciraaq inuu badbaadiyo Ilaahay u soo diray wallahi wax kale laguma tilmaami karo kus lacagta hadda uu badbaadiyay ayaa waxay ku sii socotaa leeyahay lacag ku dhow 100 milyan oo dollar inta qof ee la xiray xildhibaano hore kuwa hadda jooga waxa kaaga daran Ali Miraj ku-xigeenka wasiirkii batroolka dalka Ciraaq maalmo ka hor intaan la xirin wuxuu ku ololeynayay dadka u ballan qaadayay in uu si daahfuran dadka Ciraaq ugu shaqeyn doono inuu cadaalad Ciraaq ka shaqeyn doono musuqmaasuq inuu la dagaalami doono hadda waa tuugnimaha ka wacdiyo tuugnimaha kala dardaaran isagii hadda la haya waayahay saaxiibada qiimiga loo qodobka xiga barnaamijka Morocco kooxda Morocco ayaa noqotay kooxdii ugu horeysay Afrikaana ee u gudubta wareegga 16aad ee koobka ciyaaraha adduunka kooxda Morocco waxay hal isula gudbeen ilaa iyo waqti dheeraad lagu daray kooxda Netherlands ee dalka Holland ka socda markay isdhaafi waayeen gool kulaad bay isla aadeen penalty markay isla tageen waxa ku soo baxday kooxda Morocco
Netherlands waa laga raayay waxa yaab leh marka kooxda Morocco markay ciyaarta bilaabanaysay suurta Faatix ay ku bilaabeen waxa la arkay iyagu inta isku yimaadeen Faatixa akhrisanay markay ciyaarta dhamaatayna kulligood sujuud bay la baxeen sida muuqaaladeen kaga muuqata kooxda Morocco hal mar bay u sujuudeen marka waxa la weydiinayaa mid kamid ah ciyaartooyda kooxda Morocco oo leh Issa Diop habka ay u dhaqmeen iyo soo bixitaan koobka adduunka ay ku soo baxeen wareegga 16aad mar wax laga weydiiyay Issa wuxuu yiraahdaa cajiib wuxuu dhahay saad ogtiin ba anaga waxaan nahay dad muslimiina adduunyadaana waqti yar baa la joogayaa bal fiirninka fariinta u gudbsanaya qofka muslimku waxa la rabaa meel kasta oo macquula oo fariinta islaamnimada gudbinka risaalada inuu dadku gudbiyo waayo aakhiro waa lagu weydiinayaa dadka daadan islaamku ugu yeerin adoo fursad u haysto wuxuu leeyahay saad ogtiin anaga muslimiin baan nahay adduunka waqti yar baan noolaanaynaa anada adduunkan ka tageena wax kasta guul kasta ilaahana siiye wax kasta oo wanaagoon gaarno ilaahay baa na gaarsiiyay mar kastana ilaahay baan u mahad celinaa subhanahu wa ta'ala ajiib bal ka waran sujuudda laftirkeeda fariina ciyaaraha dhacaya dadka qaar waxay leeyihiin kubad baa la ciyaara kubadda fariimo badan baa loo gudbistaa dad uga faa'iideysta ilaahay xuskiisa dad baa uga faa'iideysta islaamnimada dadka inay ku baraan bal ila daaw ciyaaryahankan hadalka uu ku dhawaaqay marka wax laga weydiyo ciyaaraha iyo wareegga 16aad ay u soo baxeen kooxda Morocco. You know, as I said, we Muslim people, so you know, we just here for a short time, so everything is about Allah and thanking Him. You know, as I said. Allah yahay sidaan hor u dhahayba sidaad ogtiinba annaga waxaan nahay dad muslimiina wax walba Ilaahay baan u celinaa wanaag walba Ilaahay baan siiyay Ilaahay baan u mahad celinaa Rabbi adduunkan waqti yar ayaan ku noolaanaynaa macnaha waa fariin midka aan weligiis Ilaahay maqlina soo jeedinayso Ilaahay barayso ayaga dacwadooda waa guteen kaliya kubad inay ciyaaraan uma imaan Mareykan bay intay tageen North America iska dhe Canada Mexico iyo Mareykan uu ka dhacayo ciyaaraha 2026 ka 2026 waaya ay saaxiibada qiimiga leh qodobka kooxda Morocco iyo fariinta diiniga ay ka gudbisteen gudaha ciyaaraha koobka adduunka markaynu meesha uga gudubnay Iran iyo Mareykanka waxa ka soo kala baxaya hadal kala duwan oo isburinaya Trump wuxuu leeyahay sida Al Jazeera iyo warbaahinta kale ay warinayso annaga iyo Iran waxaynu ku kulmi doonaa dalka Qatar ee magaalada Doha ee dalkaasi si loo sii wado hanaankii is-afgaradka MOU-ga la wada sixday iyo sidii lagu gaari lahaa heshiis waaro iyo in laga hadla nuclear-ka dalka Iran arrintaas way diiday madaxweynaha dalka Iran wuxuu leeyahay aan iraade ku xigeenka wasiirka arrimaha dibadda dalka Iran waxa uu leeyahay ma jirto meel aan ku ballanay Doha meel aan uga ballanay annaga iyo Mareykanka inaynu maanta ku kulano ma jirto warkaas xaqiiq ma taas macnaheedu waxa ay tahay hadalkii Trump uu lahaa waxaan la kulmaynaa Iran ilaa iyo shalay buu ku celinay maanta uu ku celiyay Trump wuxuu leeyahay in wafdigii Mareykanka way baxeen ya la kulmi doonaan ma god cidla ama xafiis cidla intay fariistaan ay iska soo noqon doonaan ilaa Iran way diidan tahay waatan Al Jazeera warbixinta ka diyaarisay kulankaasi Iran's foreign ministry says there are no planned meetings with the U.S. in the coming days, but President Donald Trump says U.S. and Iranian officials will meet on Tuesday in Qatar's capital, Doha. These contradicting statements follow an exchange of military strikes late last week, despite a ceasefire agreement. Iran fight that we have, which we're doing very well. There'll be a meeting on that tomorrow in Doha. And to go into Qatar, I think they've already left or they're just about getting ready to leave. So we'll see how that goes. But we're doing very well on that front. But the meeting in Doha is going to be perhaps important, perhaps not. We're going to find out. But we're winning militarily. It's almost won militarily, I would say. And it's really very simple. It's the denuclearization of Iran. We don't want them to have a nuclear weapon, and they're not going to have a nuclear weapon, and they've agreed to that, in all fairness. Trump waxa uu leeyahay in xalay buu leeyahay we're going to Qatar tomorrow we're winning militarily perhaps they're flying tomorrow Iran waxay leedahay now we're not ma socono Trump meeshu ka keenay ma naqaan wadahadalladan hadda mar kale Doha lagu noqonayo waxa ay daba socdaan maalmo kadib markii ay Mareykanka Iran labadaba isgaraaceen oo ay isduqeeyeen iyadoo afar weerar oo laba Iran ay qaaday iyo laba Mareykan uu qaaday u dhaxmaray labada dhinac haddana hadda waxa soo baxay hadalla isburinaya oo ka kala imanaya Mareykanka Iran Mareykanku waxa uu ku celcelinayaa oo leeyahay maanta oo Talaado waxa lagu kulmayaa Doha halka Iran wasaaradda arrimaha dibaddana
arrintaasi ay diidan tahay madaxweyne Trump oo xalay aqalka cad fadhiya ayaa sheegay in wafdiga Mareykanka uga qayb galay wadahadalladaasi ay ku sii socdaan magaalada Doha ee dalka Qatar waayahay saaxiibada qiimiga loo qodobka ugu dambeeyay barnaamijka ahna qodobka ugu xiisaha badan ayaynu ku soo xireynaa gabadha soo socotay qisadeeda in la wadaagayo waa gabar yahuudiyad ahayd laakiin hadda islaamka qaadatay gabadhan waxa ay leedahay hooyaday waxa ay dhashay laba caruur ah aniga iyo walaashay iga yar walaashay waxay ahayd xilligaasi 14 jir anigana waxaan ahaa 18 ilaa 19 jir hooyaday waxay ka mid ahayd dadka yahuudnimada aad ugu weyn tahay oo Israa'iil waqtiyadii dhibaatada iyo xilladii kala duwanaaba joogay waxa markaan islaamka qaadananiyo walaashay waxaan ugu adkaatay inaan hooyadeen u sheegno inaan muslimnay oo aan ilaahay rumaynay islaamka aan ku qanacnay aad bay arrintan noo dhib haddana waxaana sii gubtay inaan ka qarino hooyadeen oo aan gaalnimo annaga aanan ku jirin noloo maleeyo islaamnimadeena aan la aamusno in annagoona shaqo ku lahayn wax dambiya aan gelin haddana islaamnimadeena aan la baqno udaan la aamusnayn bay tir 6 bilood ayaan islaamnimada qarsinaya cajiib hooyadeedii dadkeeda yuhuud bay ka ahayd laakiin iyada muslimad bay ahayd walaasheedba maalinka daba go'aan baan gaaray bay tiri hooyaday baan u wacay waan la fariistay waan kula wadaagi doonaa waxaan ku iri bay tiri hooyo waxaan qaatay islaam waxaan rumeeyay ilaahay iyo nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam gabadhan waxay leedahay hooyaday markaan hadalkaas u sheegay waxay igu dhahday hadal ay haboonayn in hooyo ay ilmaheeda ku dhahdo hadal aan sax ahayn hooyadeed hooyo beer wax dhalay inuu ilmihiisa ku dhaho balaag nacaybka dadka qaar ku jiro waxay igu dhahday bay tiri hadalkan ah inaad islaam noqoto inaad ii sheegto waxa iiga fiicnayd inaa igu dhahdo waxaa ka mid noqdo kuwa jirkooda ka ganacsado prostitute dumarka jirkooda iibsado zinaysto zaaniyad jirkeeda iibsato inaad i dhahdo ayaa iiga sharaf badnayd inaan muslim baan ahay ayaa igu dhahdo dadka qaar nacaybkooda wuxuu gaaray meel aad u xun meel aad u xun aad u ful aad u ful anaa waxay leedahay waxaa iiga fiicnaydba inaan igu dhahdo waxaan ahay dumarka noocaas balay gabadhan saqaabka iga waramaysa iyadoo iyadoo wax kala qabsan My parents are Jewish. They've got 2 daughters and we both were Muslim. My mom had lived in Israel. My mom had a love for Israel. She had lived on what's called a kibbutz when she was a teenager and she thought she was going to live there for the rest of her life. She didn't think she would come back. She loved it so much. And she saw Israel as the land of hopes and dreams and the land of the free. And she had like a really warped vision on the reality of what it actually is. So to sit her down and say we are both Muslim, I didn't know how she would react. I'm 19, my sister's 14. Is she going to kick us out? How is she going to respond? It was something I really didn't want to do. I didn't want to tell her, but I knew it got to the point where I didn't want to hide being a Muslim anymore. I wanted to wear hijab. I couldn't wear hijab. I wanted to just practice my faith. It'd been about 6 months and I was ready. When I told her her words, it's something that no mother should ever say to their child, because she turned around and she said to me, I would have rather you told me that you were a prostitute. I would rather you told me you're on the street selling yourself for money than a Muslim. And she was livid. She was shaking and shouting, and alhamdulillah, my dad didn't really say much. He was a lot more open-minded as a person. He was very pro-Palestine. He'd been a hippie. He'd travelled the world. But my mom was just, it wasn't a nice experience. With time, she's amazing. She's absolutely incredible. My dad took his shahada before he passed away in front of my mom. And Allah inspired me to say, Mum, do you mind if I talk to him about Islam? And she said, yes, I don't mind. Like, the same woman, when my dad repeated Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah before he died, my mom was crying happy tears. Like, may Allah guide her, may he allow her to accept Islam too, Ameen. But it just shows me sometimes fear is from ignorance, and when they start to learn that it's not all bad, things can change. Inshallah, never give up hope. qisada gabadhan wallahi waa qiso cajiib qof kasta dareenkiisa taabanayso waxa ay leedahay hooyaday markaan u sheegay waxay nagu tiraan oo 19 jir walaashan 14 jir tahay waxa iga fiicnayd inay igu dhahdo jirkeygan ka ganacsada dumarka liitana aabahaysa wuxuu ahaa bay tirinin qadiyada Falastiin taageero hooyaday ka duwan maskax furan hooyadaysa waxay ku noqotay dib weyn inuu gaaro kala way jaraysa markaan u sheegay inaan muslimnay way ruuxantay way gariirtay ويسا وقايلسي سيدا إن مصيبة كون على يوكله لكن وحو وقتك إسقربا سلال كان أقبلنا كدب هويدا إير ويسو سيدا هروي كسر رونانيس وقدام بين وحي تري هويدا نوع عاس أهيد سيدا أو خيرنيس أرجع يقول تري
aabbahay markuu dhimanayay ee xanuunsaday intuusan dhiman ka hor ayaan hooyaday ku dhahay bay tiri hooyoy aabba islaamnimada ma ugu yeeri karaa shahaadada ma u qaban karaa haabay ugu tiri aabbaan u tegay islaamkan u sheegay aabbow intaadan dhiman ii muslim markaasuu yidhi laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulullah aabbahay sidii ku muslim aabbahay wuxuu dhintay bay tiri isagoo muslima oo ilaahay rumaysan hooyadii nuuca ahayd ila dagaalamaysay aabbahay markuu ashahaadanayay islaamka qaadanayay way ooysay bay tiri way ilmays dhib badan baa islaamka laga soo maray gabadhan hadda hooyadeed ba ilaahay u baryaysaa inuu ilaahay hanuuniyo hooyada qalbigeedu uu isbedelay way soo bedelaysaa way soo wanaagsanaanaysaa ayadan ilaahay baan u baryaa beeleedin islaamka aqbasho mararka qaar ilaahay awlaadaada ku soo diraya inuu ilaahay adiga kugu badbaadiyo kugu hanuuniyo